kulan wanaagsan daawaday kuna soo dhawow warbixintan xiisaha leh oo aynu ku soo qaadanayno sharaxidda xeeladaha la adeegsaday saddex ka mid ah in sarcaadyo cajiib ah oo lagu soo bandhigay kanaalka Ajakis Official. in aynu soo bandhigno xeeladaha in sarcaadyadan waxaa naga codsaday qaar ka mid ah daawadayaasheena annaga oo tixgelinayna codsiyadiina ayaanu isku howlnay soo bandhigidda xeeladaha cajiibka ah ee loo adeegsaday in sarcaadyadaas oo ay soo bandhigeen wiilal Soomaali ah oo si xirfadaysan u adeegsaday bandhigidooda. inta aanan ku bilaabin waxaanu ka codsanaynaa in aad muuqaalkan like saartid si ay dhiirigelin noogu noqoto isla markaana aanu u aragno inta qof ee xiiseynaysa warbixinta. kanaalka Ajakis Official oo ah kanaal madadaalo oo dadka looga qosliyo ayaa dhowr jeer lagu soo bandhigay in sarcaadyo qaarkood fudud balse ay dadku la dhaceen oo ay aad u xiiseeyeen sida loo sameeyay. dhowr muuqaal oo kanaalka la soo geliyay ayaa midkiiba lagu soo bandhigay dhowr xeeladood oo in sarcaadyo ah. dhammaan xeeladahaasi waa kuwa cajiib ah oo xiiso badan, laakiin annagu waxaanu ka soo qaadanaynaa kaliya saddex in sarcaad oo aanu u aragnay kuwii ugu yaabka badnaa ee ay soo bandhigeen wiilasha lagu kala magacaabo Maahir iyo Cabdulcasiis. in sarcaadka koowaad xarig inta la jaro haddana sidiis ah oo aan kala go'nayn. in sarcaadyaha Cabdulcasiis ayaa soo qabanaya xarig nooca kabaha ama buumooyinka ku jira oo kale. waxa uu Ajakis tusinayaa in xarigu uu fayow yahay oo uusan go'nayn. kadib maqas ayuu la soo baxayaa. Ajakis ayuu ka codsanayaa in uu xariga ku jaro. dabadeed xarigii ayaa go'aya. inta uu in sarcaadyuhu isku gunado xariga ayuu mar kale Ajakis tusinayaa gunadka xariga. Ajakisna waxa uu daawadayaashu xaqiijinayaa in xarig laba gabal kala ah oo isku gunadan uu yahay. maxaa xiga? waxaa xiga xarigii oo uu in sarcaadyuhu gacanta ku duuduubtay kadibna inta la furfuray sidiisii hore ah oo aan kala go'nayn. yaab badana oo sidee ku dhacday arintan? waa in sarcaad cajiib ah oo dadka qaarkood aysan ba horay u aaminsanayn in qof Soomaali ah uu isku dayi karo xeeladan oo kale. haba la soo bandhigay xeelada in sarcaadkan loo adeegsaday maxay tahay? sirta ku jirtaahi waa maxay? waa waxa ugu muhiimsan ee aad daawada naga sugaysid Soomaali. waa tahay aan ku sharaxo. sirta iyo xeelada in sarcaadkani uu ku tiirsan yahay waa isla xariga. sidee buu ugu tiirsan yahay? waa xariga oo aan la kala jarin balse aan u qaadanay in la kala jaray. haddaba sidee? si aan sharaxaadda in sarcaadkani u wada fahamno waxaanu u baahannahay in aanu kaamirada horteeda kugu soo bandhigno sida xeelada loo sameeyay. xeelada in sarcaadkaasi sidaas fudud ayaa loo sameeyay. waxaan filayaa daawada in aad ka qanacday. aan eegno xeeladeena sarcaadka xiga.
indhasarcaadka labaad. Muus cadcad maqas loogu jarayo iyada oo aan maqaska loo dhaweyn. Muus weli qofkiisii uu ku dahaaran yahay oo aan laga fiiqin ayaa maqas lagu jarayaa iyada oo aan maqaskana la taabsiin muuska ama xitaa aanba loo soo dhaweyn. Indhasarcaadyaha ayaa miiska soo saaraya muus qofkiisa qaba oo fayow, isagoo Ajax tusiyay in muuskaasu yahay mid fayow oo aan kala jarjarnayn. Ajaxna daawadayaashiisa ayuu u xaqiijinayaa in muusku yahay mid fayow, weliba waa 2 xabe, midka ugu roon ayuu dooranayaa. Kadib muuskii inta miiska la saaro ayaa maqas lagu aadinayaa, laakiin iyada oo aan maqaskii loo soo dhaweyn ayaa laga dhigayaa sida in maqaska wax lagu jarayo. Kadib muuskii ayaa qobka laga fiiqayaa, waaba muuskii oo jarjaran. Sidee ku dhacday? Waa xeelad cajiib ah oo daawadayaal badanna soo jiidatay, sida ay ku qoreen qaybta kommentiyada iyaga oo sheegay in ay la dhaceen xeeladaas. Haddaba sidee xeeladan loo sameeyay? Waxayse ku tiirsan tahay? Aan ku sharaxo. Xeeladani waxay ku tiirsan tahay cirbad ama istakiin dhuudhuuban balse adag. Sidee ugu tiirsan tahay? Waa su'aal. Waxaa la soo qaaday muuska oo uu qobkiisu ku dahaaran yahay. Si taxaddar leh ayaa cirbadda ama istakiinka ama tif yar oo adag loogu muday, kadibna waa lagu jaray sidan soo socota oo kale. Indhasarcaadka saddexaad. Turub marba lambar hor leh uu ka soo muuqanayo. Indhasarcaadyaha ayaa Ajax iyo daawadayaashaba tusaya 4 warqadood oo turub ah oo min 2 lambar ka kooban, 2 warqadood oo min 2 ah iyo 2 warqadood oo min 8 ah. Kadib indhasarcaadyaha oo aan meel kale aadin turubkiina meel kale ku qarin ayaa marba si la yaab leh waxaa soo muuqanaya 2 lambar oo isleh ama isku aadan. yaa badana. Sidee ku dhacday? Xeeladda indhasarcaadkani waxay ku tiirsan tahay isla 4 xabo oo turubka ah. Indhasarcaadyuhu waxa uu sameeyay 4 xabo oo turubka ah ayuu 3 iyo 1 isku raaciyay. Yacni labadiisa gacmood ayuu midna ku qabtay 3 xabo oo turub ah, gacanta kalena 1 xabo oo turub ah. Midda uu 3da ku qabtay 2 lambar oo aan islahayn ayuu wajiyadooda isku aadiyay. Tusaale, labaalaha ayuu wajigiisa ama qaybta lambarada ku aadiyay wajiga turubka 8laha ah. Kadib marba labada gacmood ayuu marna 1 xabo ku reebayaa oo uu tan kale 3 turub ku geynayaa. Mar kale ayuu midii 3aad ahayd 2 ka qaadaya oo uu gacanta labaad 3 uga dhigaya. Halka xabana meeshiisa ayuu ku reebayaa. Mar kastana waxaa soo baxaya 2 lambar oo isleh. Muuqaalkan si degan u eeg si aad u fahamtid.
afuufidda la afuufayo turubka waa uun iska dheeraad ee wax xeelad ah oo ku tiirsan ma jiraan. gabagabada waxaan filayaa inaad ka heshay daawashada warbixintan, sidoo kalena waxaanu soo bandhigi doonaa warbixino kale oo xiiso leh. fadlan nala wadaag aragtidaada, qodobkee ku xiiso geliyey oo warbixintan ku jira. wayna farxad gelinaysaa in aad daawatay warbixintan, sidoo kalena aad like saartay. wax weyn ayay nooga dhigan tahay la socodkaaga muuqaalada aanu halkan soo gelino. mahadsanid.